guddiga nabadgelyada ee gobolka Togdheer oo shir sharaa'id ku qabtay xafiiska barasaabka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee guud ahaan gobolka Togdheer. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo, maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Heero, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Togdheer, taliyaha ciidanka asluubta gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada qaranka ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer. waxa weeyaan anagu waxaan mas'uul ka nahay nolosha dadka iyo amnigooda iyo nolosha deganaanshadeeda sida awadeed marka koowaad waxa aan marnaba yeelin horta xaalad nabadgelyo daro nabadana cidnaba horta laga bari maayo marka koowaad marka labaad kalena marka uu isku dhaadhaco ama muran yimaado wax badan oo lagu garnaqsada baa jiray siyaabo badan oo kale oo ka horeeya in de kacdoon la geliyo marka labaad kalena inagu burco ahaan aad bay ceeb inoogu tahay inaynu noqono boogta Soomaaliland la taabto oo la yiraahdo halkan laga kacaya idinkuma ogin balo waan jecelahay waan ogahay dad wanaagsan tihiin waan ognahay in qiimaha in la idinku xisaabtamo aan leediin anagu ma nihin kuwa tartamaya laakiin anagu waxa mas'uul ka nahay nabadana hooyaabo adiga ay ku daran tahay walaal dhalinyarada tay soo koraya amnigu nolosheena ayuu ku saleysan yahay annaguna ma qaadi kareyno dib weyn baaqa aanu dirayno waxaan u diraynaa gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco siyaasadeedna waa mid mar walba jira adduunyada dhan buu ka jira barlamaanada adduunyada waa murmaan waa la isku qabtaa wax walba way dhacaan laakiin waxa weeyaan garsoor baa jira golayaal baa jira meel lagu kala baxaa baa jirta inagu ka garqaadi mayno muhiimadda qura meesha taalo waxa weeyaan nabadgelyada inay ilaashano halkan sida hore loo sheegay waxa yimi xisbi qaran oo xisbiga wadani gobolada kale muu tagay gobolka Burco yimi gobolka Togdheer ayuu yimi shirarka shirarbu ka qabtay shirkayga jareed wuxuu ku saabsan shirarka uu ka qabtay xisbigu halka dareen ahaan wax aanu ka dareensanahay ayuu ku saabsan yahay in dadkii wax loo sheegay ee wax lala hadlay inay qaarsi kalaba wax u qaataano ay halka waxa weeyaan rabshadeeyo waxa loo baahnayn taa waxa leenahay waa sameynaysan in malihin laakiin waxa leenahay ayadoo goboladii kala nabad yihiin oo ay Soomaaliland wax kale buuqi aan ka jirin inagu gobol ahaan wax inoo gaaro oo buuqiyu jirin waxaanu baaq dheer u diraynaa oo cod dheer iyo cod gaaban bay ugu sheegaynaa dhalinyarada waxgaradka iyo odayaasha culimaawidiinta iyo dhammaan bulshada reer Burco inaynu ilaalino amniga iyo nabadgelyada kaasoo dan inoogu wada jirto in la ilaaliyo nabadgelyada in odaygu ilaaliyo in habluhu ilaaliyaan in inamadu ilaaliyaan in hooyooyinku ilaaliyaan dhammaan in aynu ka duulno noloshu waa amniga amniga ka duulo marka maalmo dhaweyto maalmihii u dambeeyay waxa halka kormeer loogu yimi xisbiga wadani iyagoo dadweyne fara badan oo kala nooc dhalinyarada u badan ay shiriyeen una sheegeen una ilaaliyeen in wax la iska celiyo oo dawladuna totally dawladda jirtaana ay dulmi iyo xaq darro ay ku soconayso waxa la ilaaliyo wixii dawladdaas soo jeedisana waan ka hor imanayna ayaa hadalkooda runtii u dhacayay arrintaasina ma yahay arrin meesha ku jirta biyeeyada laga filayay baad dadku maanta maalmo ka baahi badan ma jirto abaar baa jirto gobol baahsan baa gobolka ka jirta biyihii laga filayay waxay ku bedeleen diyaar garooba iyana diyaariya haday mid hoose tahay iyo haday mid sare tahay qof waliba uu xisaabtamo yar iyo weyn nabadgelyada haddaan public police ama gudda nabadgelyada waxa ku shaqeysaa waa awoodda public weeye awoodda mujtamaca weeye mujtamacu haday wax laga hagaajin waayaan oo hawlaha nabadgelyada laga shaqeyn waayaan anagu farkii fool ma dhaqdo inta wax ma qaban karo saaka kulankan degdega ee guddiga nabadgelyada shirka sharaa'id ku qabanayaan wuxuu daaran yahay nabadgelyada wax walbana ibnu aadamka waxa laf dhabar u ah ama bays u ah nabadgelyada haddaan nabadgelyo jirin la ganacsan maayo la cibaadaysan maayo wax la baran maayo ma ogin nabadgelyo darro jirta ma ogin laakiin waxaanu ognahay waxyaalaha dareenada jira ee ka jira maxay tahay guud ahaan qaranka gaar ahaan gobolka Togdheer in maxay tahay qoladii xisbiga inoo yimi dareenan runtii aan ka qabno iyo abaabul intaba maxay tahay la sheegayo sida darteed waxaan bulshada gobolka Togdheer ugu baaqaynaa siday nabadgelyadooda u ilaashan jireen
iyo midnimadooda inay u ilaashadaan haddii maanta dhib dhaco dhibku inagu inu ku koobnaanayo aabba iyo hooyo waxaan leenahay ubadkiina ilaashada ka warhaya ilmihiina inantiina ka warhaya inankiina ka warhaya Axmed Shaafi wararka telefishinka Sahan magaalada Burco.